Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaheyga waa idin salaama meel kasta adduunka ka joogtiin waxaa idin rajeynaa caafimaad bashbash iyo barwaaqo annaga waa idin fiicana alxamdulillaah ayaanta aad runtii aan u mashquulay laakiin ma idin iloobin waxaan rabaa inaan idinla qaybsado video aan u arko inuu aad muhiim u yahay mawduucan aan ka hadlayo saa kasoo aragtay ciwaankan waxay ku saabsan tahay cirbada la geliyo garabka oo la isaga ilaaliyo uurka amba ilmaha la isaga celiyo ku saabsan tahay runtii dadka wadamaha jooga aad ay u isticmaalaan marka waxaa jiro dhowr midaa jirto kiniini waa la cunaa waxaa kaloo la cunaa cirbada hadda ka hadli rabo oo garabka la gelinayo way jirtaa oo dadka badankood way qaataan geed jiro asina waxaa jiro saas u wareegsan oo fargal camal oo ayadana hoos la gelinayo jirto uurka la isaga celiyo marka dhowr qod waa jirta kaas hoos la gelinayo dadku waxay dhahan badanaa haddii qofka noqoto oo uur qaado halis uu geli karaa xataa minka ka qarxi kara dadka dhahaan marka muhiim waaye inuu qofka uu la socdo caafimaadkiisa marka caafimaadka mararka qaar qofka inuu la socdo way adag tahay waayo calaamadihii uurka lagu arkayo calaamadaha geedkan oo garabka la gelinayo oo uurka la isaga celiyo calaamado leeyahay calaamadaha uurka camal uu leeyahay marka way adag tahay qofka inuu ogaado laakiin uu dhib ma lahan geedka qaali ma aha iska soo gado iska fiiri markasta inaa uur leedahay in kale walaalayaal mana ku dheereynaya warka waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo qiso gabar ku dhacday Sweden joogto Swedish gabadhaa 30 iyo waxay jirtaa 32 jir waaye 3 canuga u joogto runtii waxay tiri Ellen al dhahaa waxa ku dhacay Ellen cirbada waxay gashatay garabkay gashatay marka 3 canuga u joogo waxay dhahaysay ilma kale waa jeclaalahay tiri oo markaas cirbada ay gashanayay garabka ma ugu talagalin ina ilmaha isaga celiyo oo bis waa ana ilmo bis ay yihiin laakiin waxay ugu tala gashay inay ilmaha ay ku kala dheereysato oo ilmaha u kala qoraan calay xaal ilaa 4 sano ilaa 5 sano arabiy tirno geedka ku jiro geedka caadiyan 5 sano waa mid 3 sano jira iyo 5 sano gabadha kii 5 sano gashatay waxay dhahday marka 5 sano inta la gaar marka waxay tiri caadada qofba si waaye dadka qaar waxa dhacda caadad noo ka tagaysa ilaa sanad ay ka maqnaayaysa qaarna waxa laga yaabaa bishiiba 3 jeer inuu isaga imaado maanta isaga soo noqdaa laga yaabaa marka waxay tiri aniga caadad noo iga tagtay marka geedka gashto okay naagti umulsada ay sheegtay waxay dhahday caadad dad noo ka tagtaa dad dhowr jeer u soo noqotaa bishii marka aniga waxaas dheeraaday qof dadka waxa ku jirta ay ka tagayso okay bes waxaan sameeyay dhahday adi markay ka soo wareegtay 7 bil camal markay ka soo wareegtaa waxay tiri waxaan isku arkay tiri xanuun qaab daran oo xanuunkii uurka calaamadii uurka isku arkay dhahday sidii madax xanuun daal lalabo waxyaabahaas isku arkay dhahday matag subaxdii testiga qaaday dhahday uura soo bixi dhahday oo positive waan naxay dhahday isbitaalka u cararay waayo ma ka naxin tiri ina uur leeyahay laakiin waxa ka naxay geedka ugu jiro saameyn ilaa intee la cunug uu ku yeelan karaa bis waxay tiri isbitaalka tagay dhahday mararka qaar geedka uurka been uu sheegaa marna qaar run uu sheegaa oo iyad adoo uur leh oo been ku sheegaa marna adoo uur leh oo negative soo sheegaa oo uur milido ku dhahaya isbitaalka markay tagto waxaa la saaray computer degdeg computerka markii la saaray uura soo baxay inay leedahay oo dhowr bil markaas waxa dhacday gabadhii inay isla markiiba waxaa la dhahay waxaa la fiirinayaa cunug fiican yahay inuu meeshii loogu talagalay oo ku abuurmaayo ilaa cunug 3 bil 4 jil ma dareemayo cunug ma ahan wax yar waa laakiin waxaa la ogaanaa calay xal inay uurka sidii la rabo inuu u socdo oo meeshii la rabo oo ku abuurmo cunugga maadaama wax garabkeeda uu ku jiro gabadhi waxay tiri computerka wixii markii la saaro dhaqaatiirta baaritaan ila galeen waxaa soo baxday tiri inuu uurka uu ku abuurmo minka banaankiisa waayo geedka garab ku jiro uurka uu celinaa soo maahan marka meel qaldan uu ku abuurmay tiri oo xantiina iyadana meel oo waxay ku dhagtay tiri oo minka geeskiisa lagu talagalin wayna mana ka soo fuqayso ilaa in qaliin lagu sameeyo ma ahne qaliin degdeg ah lagu diyaarshay dhahdo oo laga qalaayo ukuntaas oo meesha ku dhagtay laga soo bixinayo maadaama labada dumarka laba ukun ay qabaan kamid laga soo bixinayo maadaama midkan oo si qalad oo meesha ugu dhigay bes waxay tiri intaan qaliinka la dejinayo waxay tiri habarta umulsada waxay ugu dhahday malagu mid marabta oo kii garabka la galiyahay mid kale oo nooc kale malagu sameeynaya hayay tiri bes kii garabka lagu mid kale lagu dajiyay oo asina sidii hormonal lahaa hormonkaas lagu dajiyay markii oo la geliyay oo garabkii laga geliyay qaliinkii loo diyaar garoobay laga soo bixiyay mid kamid ukuntii mida u harta marka oo uur way qaadi kartaa uur macnaha markaas way qaadi kartaa
laakiin hadda waxaa lagu dhejiyey oo dhabarka gacanta loo geliyey kii uur ku qaadamaana mid kamid ah loo geliyey oo maasha allah oo aan ugu sheekeeyo inuu fiican yahay midkaan uu caawin doono. bis markii loo geliyey qaliinka loo waday, qaliinka markii lagu soo guuleystay oo maxay ahayd kii garabkiina loo geliyey nooc kale iyada kusoo baxay amba u fiican loo geliyey, gurigeeda iska aaday. haddana waxay tiri 8 bil ka bacdi markaa joogdo waxay tiri uur kale ayuu soo baxay. laa xawla, isla calaamadiyaa dareemay dhahday, testi iska qaaday tiri positive uu noqday. isbitaalka ku cararay tiri, isbitaalka markaa ku cararay oo la dhahay dan la arkay ilmihii haddana meel minka banaankiisa meesha loogu talagalay meel kale ayadna ku abuurmeen, ukunta haddana meeshii ay ku dhegtay oo toogtii hore ay ku dhegtay. marka haddii laga bixiyo tan waxay noqonaysaa ma dhasho caadi ay noqonaysaa, uur ma qaadi karto waaye. marka labadii ukun hadii laga soo bixiyo uur ma qaadi karto waaye. marka waxay dhaheen haddii qaliin lagugu sameeyo laga soo bixiyo uur ma qaadi kartid, anina uuraa rabaa hay tiri inaan qaado mustaqbalka. oo waxay tiri marab in laga soo bixiyo ukunta kale ee xal kala keenay. bis dhaqaatiirtu waxay dhahday waa laga geeda la gelinaa fiilo waxyaabahaas meesha ku dhagaa laga soo jiidaa heedan laga soo bixinaya. bis waayay tiri markii intii hooshas la galayay dhaqtarka wuxuu arkay marka hore waxaa la dhahay cunuga yarkoo meesha ku abuurmay ilaa cunug ma dhama laakiin wax yar waaye waxay dhaheen waxa waa 8 mililitr waaye dhaheen. 8 markii la fiiriyo si fiican oo loo baaro wuxuu noqoyay ma bahana waa 2 sentimitir cunug xoogaa roon oo noqoyay waa soo weynaado noqoyay. bis marka ikfashina meesha ka dhashay, ikfashina meesha lagu arkay. dhaqaatiirtu waxay dhaheen haddii hadda maanta qaliinka yarka waxa lagu soo dhuuqay laga soo bixinayo haddii lagu sameey lahayn naftaada halis gali lahayd ay dhaheen, ikfashinkan u dhima lahayd ay dhaheen. bis waana qasab in laga soo bixiyo geedan kale ukuntan kale meesha ku hartay. waxaa qasab noqotay gabadhii marka qaliinka degdeg lagu sameeyo oo waliba oo kan serious ah oo nafteeda oo halis gal rabtaba ukunti kale laga soo bixiyay. gabadhii meesha waxay ku noqotay qof aan waxba dhaleyneen ku noqotay oo labada xabba waa laga soo bixiyay. marka muhiim waaye inaan had loo qaadan waxaaneeti garanti loo qaadan oo la dhihin waxaan 100% waxa way noo shaqeeyayaan inaasan la dhihin markasta uu imaan karo uur amba kiniiniga ugu daran kiniiniga waxaa la rabaa hadaa subaxda 2 saac qaadana dhahdid subax kasta 2 saac inaa qaadato oo hal daqiiqana ku doobo mar hal daqiiqana ka soo hormarin. kiniiniga oo kale waali waay laakiin waxaa sameyn kartaa kan hoosna ani ma jeceli oo dhowr qof aa dhaheen haddii qofku uur uu ku qaado nafta halis gali karto waayo hadduu cunuga meesha ku weynaado minkii qarxay naftaadan halis ay noqonaysaa minkan uu ka qarxi karaa oo waxba markale ma dhalaysid. kan garabka asigana waa 100% wuu fiican yahay la dhahaa laakiin aad digtoonaasho iska lahaa iska ogow maxay heeday hadaa kugu jiro calaamadaha uurka isku aragtid ama wax yar oo calaamadaha xataa kamid ah isku aragtid ama daal badan isku arkaysid ama diiqada isku arkaysid. diiqada anaga reexan Muqdisho ma naqaan laakiin diiqad waxa laga wadaa qofka inuu oo yahay qof saad ah oo wax yar hadii la habo ku xumaanayo indhiis inuu soo istaagayso oo in iska qabanayso maanta iska camashoon aan dhahnaa diiqada. marka hadaa isku aragto walaalay calaamadaas noocaas oo kale isla marka geedka soo gado qaali ma ahan iska qaateystiga oo waxba ma ahan inta waxay $10 ka soo bixi lahayd ka muhiimsan waxa ka muhiimsan in naftaada ay halis gasho ama minka halis ka galo ama wixii cunug meesha qalad ku abuurmo ada problemkaasna insha Allah ka muhiimsan $10 wax u dhigmaba. marka iska soo gado marka isku aragtid hadhihin waxa waa la hubaa dhaqtarka waa la hubaa ila dhaqtarka bil aadan waaye wax ma ogaan karo oo ilaahay ka way markasta. marka iska sameey insha Allah ta'ala waxa idin rajeenayaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo. video haduu ku cajiibay share garay asxaabta sii gaarsiin laagtan kiilooyin insha Allah ta'ala aad u maasantihiin. waxaan kaloo ku daraa inta awlaadaysan ila salax ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo.